ayaa la qaadanaya wixii la sameeyay ayaa la sameeynaya markaas waxa weeye halkaas laga xarmanaya waa markuu qofku toos oo maka u tagaayo waa xarmanaya markaas umra ayuu xarmanaya xalina waa xarmataya laakiin waxa ku dheeraanaya waqtiga halkaas uu iska xarmanaya asoo muhrim oo xajka tagaya markaas uu waxa bilaabaya haduu umra oo xarmaday dawaafki ayuu sameeynaya iyo sacyigi bayna safa wal marwa uu sameeynaya kabacdi haduu doono umradaas ayuu markaas uu ka xalaal noqonaya tamattu ay noqonaysa hadii ilaahay yiraahdo nusubta waa ka warami doona insha Allah ta'ala duruusina soo socotay marka sidaas markii uu sameeyo waxa weeye markaas xaalo iska naqatara markaas uu iska sugaya waqtigi markaas xajko maalinta yawm tarwiyada ah oo bishu markaas sideed ay tahay ayaa markaas min la tagaya qofka markaas uu tamattuco dam ayaa ku waajibaya oo neef ari ayuu iska bixinaya hadii halkaas hadayna uu ka tago sida madhabka imaam Shaafici ay tahay halkaasina uu ka tago miiqaad uu aado oo miiqaad uu ka soo xarmadane markaas damku waa ka dhacaya hadii marka hadda dadku waxa weeye ay diyaarad raacaan ee diyaaradda markaas jidda ay ku dejiso qofku markaas uu ku hormarayo ziyaarada qabriga nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo masjidka rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo ku soo dukado qabriga nabiga oo soo siyaarto halkaas oo tago baqiic iyo mazaa'irkii dhamaanteed uu tago laakiin qabriga nabiga kaleey salaatu wasalaam uu muhiimsan yahay taas idana xadiisa ku soo aroortay waan tagi doonaa nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu dhahay man hajja walam yazurni faqad jafani uu dhahay qofkii soo xajiyo oo soo ziyaarin waa igooyo rasuulku marka hadda waqtiyaashan dhibaatada jirta oo hadii markaas qofku uu maka ku hormaro hadow markaas haduu umrada ifraad uu ka dhigo ku noqoshada markaas oo qabrigan ku noqdo inay dhibaato uga timaado ama dadku isku bato dhibaato ay waqti oo makan sawaay laga yaabo haduu hadda in iska hormaro markuu jiddo uu ka digo markaas halkaas uu baabuur ka raaco ama diyaarad ka raaco madiina uu tago halkaas qabriga nabiga inta uu toona iska soo siyaarto ka bacdi markaas haduu madiina uu ka soo noqonayo waxa uu ka soo xiro karaa umrada ka soo xiranaya dul xulayfa ayuu ka soo xiranaya dul xulayfa ka soo xiranaya sidaas ayaa markaas uu ku imaanaya asagoo muhrima ayuu imaanaya sidaadaba xaramka oo maka waa in la galaa ayadoo muhrim leeyahay waxaanu aragna dad fara badan oo iska soo imaana caamo ah oo waxa weeye miiqaadkiina ka soo gudba halkaas iska imaanaya dadkaas marka waxa waajib ku ah inay miiqaadka ay u laabtaan oo waxa weeye miiqaadki dib ugu laabtaan oo halkaas ay ka soo xarmadaan hadii kale intooday waxa markaas ku waajibaya dama ku waajibaya marka rasuulka kaleey salaatu wasalaam reer Madiino wuxuu maaratay u xadeeyay meesha la yiraahdo dul xulayfa waawda ibn Abbas wali ahli Shaam reer Shaamne al-Ju'fata meesha la yiraahdo Ju'fa la dhaho meesha la yiraahdo Ju'fa al-Ju'fata meesha Ju'fa la yiraahdo waxa weeye qaryo oo markaasi 5 ama 6 marxaladood maka u jirta weeye ولي أهل نجد ماش غير نجدنه نبي عليه الصلاة والسلام روح هذه قرن المنازل ماش اللي إلى قرن المنازل قرن الصعالب نوال هم عاوه وعقبض ناجي ضوعها قبض ناجي استاليه وجبل أو مركزي مكة برجة كويا لبا مرحلة ضدنا مكة أجرة أو مركزي مسافة ميل وي وحوي أفرتن يسدد ميلوي ولأهل اليمن يمن هي مركز وحي جهادية في الصومالية دين أنا وكلام تودنا نبي عليه الصلاة والسلام وهو حدي يلملم ماشي اللي يراد ألملم حتى ولا لها وجبل يسوونه جباش اتهامه كمذا والله بمرحله ما كأجروي مركز نبي عليه الصلاة والسلام وهو راي هدنا وقال نبي حولها مكة هن لهم مكان ياشاس تدكاس لا شيغay ay maartay u yihiin miiqaad oo makaani u yihiin iyo wali kulli aatin ataa alayhina qof kasta oo markaas ayaga dushooda ku yimaada oo min qeyrihina liman arada al-hajj hajj doonaya wal umrata umra doonaya
هذا أنا وكلنتود مثلا با وحان مركز أن مرينا ليش اللي يرى يلملم أو يمنع نكو آدنه wadamada hadda meelahan kalantoodna wadamada ku aadan oo soo dul maraya ayaa iyaguna markay meesha simaadaan ayaa markaas ka xarmanaya rasuulku waxa uu dhahay alayhi wasalaam waman kana duuna dalika meelaha sadda miiqaadyaasha isku ka sokeeya oo waxa weeye maka ka xiga faman haythu ansha meeshii markaas uu ka tagaayo ayuu markaas uu ka xarmanaya مثلا waxa weeye waxa markaasi xagga maka ayaa ka sii xigta miiqaadyaashaas meeshaada ka xarmanaysa hatta ahlu maka min maka dadka reer maka hatta maka ay ka xarmanaya saasuu dhahay rasuulka kaleey salaatu wasalaam saaswi marka nabiga kaleey salaatu wasalaam makaanul ihraam kan oo acmaasha laga soo xiranay ayuu cadeeyay oo reer Madiina uu cadeeyay iyo wixii markaasi la dirisa xulayfa meesha la yiraahdo reer Sham marka waxa weeye Masar iyo Maghribna iyagana meesha la yiraahdo Juhfa weeye ahlu Najd waxa weeye iyo maaragtay Hind iyo Faris waa Iiraan ayaguna qarn malaasi weeye reer Yaman iyo Suudaan iyo Xabasho awlay ayaa la yiri iyo Soomaaliya bana yalamlan weeye marka mawaaqiidan aqdaartan ayaa markaas ayay maaragtay ku yaabeen qofkii la dirisana sidaas oo kale weeyay qofkii dariiqooda ku yimaadna saas weeyay wixii markaas ka sokeeyay maskankiisa ayuu ka xarmanaya hatta ahlu Makka ba Allah ka dhigay weeyay laakiin qofka ayay kamid ah umra doonay isagu waxa weeye waa inuu baxaa oo adna xilli oo taga meesha markaas xilliga ah oo markaas xaramka ka baxsan oo ka soo xarmada si waxa weeye oo u kulansado xilli iyo xaram weeyay laakiin qofka Makkiga markuu doonay xaj uu doonay مسكنكيس أيوه كحرمانية معايا لأنه يخرج إلى الحل في عرفات معايا الحل أسوه أو بحايا وقت عرفات وآدى أيوه ما أنت سجاراتك أيوه أسوه حل وآدى أيوه مركا أسجى ما كذا لفت كذا أيوه كحرمانية وايه وعنك سوق عضنا ينعو كلانتود حديث لقوري ابن عباس وعودة عبد الله بن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق نبي عليه الصلاة والسلام مشرق ضبط كإيمانه وهو نبي وجي عليه الصلاة والسلام وحدي ماشي إلى العقيق لده هذا مركب ماشي وحال جوده وحوي ضبط كان العراق وي ميقات قوض عقيق وي أمس ذات عرق ماشي إلى لما مرحلة أي مكوج افتح عقيقنا مركب في ويكون رئيسه لكن وح سلا أحوط أو الدلال بدن أيجا وحيتاي إنه وحوي عقيق أي مركز أي معرفة أي كحر رمضان حديث كسحاوري سجن ابن داود ترمذي نواوري سنة حسن أيوب كوري تقدم بينه وحوي صحيح وي إمام أحمد رواية سائب داود النسائي أيا وحي هذا هو ابن عباس حديث كيس وهاي وقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق نوره ليش اللي ذات عرق أيا نبي عليه الصلاة والسلام خير عراق أيجنا مارك وقتي عبد الله بن عمر واحد لجوري وأوضح لما فتح المصراني مركي الله فري لبدي مجاله وكوفة بصروي وعراق كياله أتوا عمر سيد عمر وطهجان أمير كماشى إنك فري أو مركز سيد عمر وهاي مركز سيد عياد يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا لأهل نجد قرنا غير نجد نوى عليه الصلاة والسلام وحد يوم يقعدوا ودق ميسي إلى قرن المناسب أنا كان وضدينا وكل حتى هو وهوية وأنا فوق تيرالي هذه وهوية أن ضوننا أن ماشى هذا فهذا أن وضد سنة وأنا لبيسا مركزه عوده سيد عمر انظروا حدوها ما القابل كذا فيش أو طريقنا مركز صيف في سدان وهو حدي مركز ماشي ذات عرق الليلة ذات عرق مركز ميريه نبو حدي كما جرته لكن سيد عمر أيا اجتهاد كيسر هر عراق أصدق أيا مركز سوى حدي اجتهاد ويسمي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن هو وافقي حديث أو هذا أن سومرين يو أو مركز سوى حوي هذا أن سومرين أو هاي فمن كان مسكنه بين الميقاتين أو مر بينهما فإنه يحرم عند محاذاة أقرب الإماء منه تاس أيو مركز حديث كده بقايا مركز هذا المواقيت أو مركز أو اسكالها حج هي عمره
intaas ayaan maaragtay uga waranay intaas ayaan ku soo gaabinayna anagu 10 dambe qaado doona wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh